ciidamada sida gaarka u tababaran ee BMBF oo kaashanaya hay'adda sirdoonka Puntland ee BISA ayaa ka fuliyay magaalada Boosaaso hawlgal lagu soo qabtay shakhsiyaad ka tirsan shabakada gacan saar leh argagixisada kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ay shaqadooduna tahay u fududeynta cadawga hubka noocyadiisa kala duwan iyo walxaha qarxa ee lagu halakeeyo shacabka Soomaaliyeed kooxahan gacanta lagu dhigay ee qaybta ka ah shabakada lagu raajoogo ayaa lagu qabtay noocyada kala duwan ee hubka culus budada laga sameeyo walxaha qarxa miinooyin bubooyinka gacanta hoobiyaal iyo agabyo kale afayeenka ciidamada BMBF gaashaanle Cabdiqaadir Cali Xirsi oo ka hadlay qabashada hubkan ayaa tilmaamay in hawlgalada ka dhanka argagixisada si joogto ah markasta u socon doonaan kooxaha hadda gacanta lagu hayana la horgeyn doono laamaha sharciga ah ee ku shaqada leh waxa uu sidoo kale digni adag u diray cid kasta oo gacan saar leh kooxaha nabadiidka isagoo xusayn ciidamaduna gacan bira ku qaban doonaan ciidamada Puntland ee BMBF iyagoo kaashanaya waxyaha intelligence-ga waxaanu qabanay oo lagu guuleystay shabakad aad u ballaaran oo muggeedu buuxda oo heer caalami ah oo ilaa min Yemen ilaa min Puntland intaba ay iskugu jirto oo ajuunab leh Soomaalina leh sidaa darteed waxaanu ku guuleysanay hub aad u waxyeello badan ummadda Soomaaliyeedna beled iyo baadiyaba waxyeello weyn ku ahaa haddii uu dhex galo hubkaas oo ka koobnaa waxyaabaha indhihiina ku arki doontaan budooyin aad u waaweyn oo u mugbalaadnaa oo laga sameeyo waxyaabaha qarxa waxna laguna waxyeelayo ummadda Soomaaliyeed ilaahayna nagu galaday guusheedana nahantisiyay oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa kamid ah bubooyinka gacanta laga tuuro oo aad u waaweyn waxa kamid ah hubka noocyadiisa kala duwan oo iskugu jiraan shilkayaal bardololo sebenno aakayaal agabka ciidan oo dirasyo iskugu jira waxaa jira shabakadaas aanu qabanay ilaahayna nagu guuleeyay labada cadaanka iyo nin Soomaaliyaanu hadda haynaa intii kalena waa ku raad joognaa waa wax la xaqiijiyay oo wax la og yahay goobahooda iyo haddii alla ku roon yahay meelaha ay ku sugan yihiin intaba la og yahay insha Allah ta'ala iyagana waanu soo qaban doonaa sharcigaana la horkeeni doonaa waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iideysto bulshada reer Puntland iyo dhammaanba Soomaali oo dhan inay joojiyaan hugay doonaan ha siteen teetalkay doonaan ha sheegteen in ay joojiyaan gacmaynta iyo adeegida cadawga Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland inta ka bacdi waxaan uga digayaa bulshada reer Puntland inay ka waantoobaan hub kasta oo sharci darro ah amuuraha iyagu waxay gali doonaan home to home daaqad guri to guri waa la kala garan doonaa waxaana barnaamijkan ku soo guuleystay oo gacanta ku soo dhigay ilaahayna ku galaday sidii caadada ahayd ciidamada sida gaarka u tababaran ee BMBF dhinaca kale ciidamada BMBF oo gudanaya waajibaadkooda amni ee ka saaran dalkooda iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland waxay muddooyinkii u dambeeyay laabeen hawlgallada amni ee ka dhanka ah argagixisada ku dhuumaleysata meelo yaryar oo kamid ah Puntland iyadoo laga fuliyay gulufyo qorsheysan buurleyda Calmadow iyo Calmiskaad kuwaas oo yoolkoodu yahay ka sifaynta dhulka Puntland kooxaha nabadiidka ay cadawga ummadda Soomaaliyeed